siyaasi Bashiir Cabdi Xariir oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani waxa uu sheegay in maanta dalka ay imanayaan wafuud ka socota beesha caalamka uu hogaaminayo wakiilka midowga Yurub ee dalka Soomaaliya ujeedka ay imanayaana ay tahay xalinta khilaafka doorashooyinka ee dalka ka jira. siyaasigu waxa sidoo kale uu ka hadlay furista ururada siyaasadda oo dhawaan madaxweyne Biixi ku dhawaaqay waxaana uu sheegay in xeerarka dalka u yaala aan loo burburin ka aarsiga cid gaar ah isagoo dhanka kalena ka dhawaajiyay haddii la furo ururada siyaasadda in aanay xisbiga wadani cid uga jaanis fiican aanay jirin. siyaasiga oo arrimahan ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxaa iman doona wakiilka EU-da Soomaaliland iyo Soomaaliya Nicholas Ba yaa iman doona saan warka ku hayno inuu maanta yimaado ayaan filaynaa. wallahi ergeygaasi wixii uu la yimaado markaan warbixinta oo dhan helo inkastoo war dareen hayno ama aan war hayno ku saabsan howlaha khilaafaadka doorashada iyo komishanka oo ay horan ugu yimaadeen inay maanta u iman doonaan ayaanu filaynaa. runtii markaa ayaan warbixin ka sii dayn doonaa. waxaan idin xaqiijinayaa inuu iman doono howlahana u socdo xisbiyadana la soo xiriiray sida warka ku maqasheen xukuumadana ula soo xiriiray howluhu u socdaan saan warka ku haynaa waa intaa inuu arrimaha isu soo dhaweeyo isu soo jiid inay ku yimaadaan. annaguna xagga iyaga xisbiyada mucaaradka markaan wadani quramo maahay imika isku mowqif aan nahay waxaan cid alla ciddii sidii aan bayaankii hore ku soo saaray cid alla ciddii dhexdhexaadin wada wax soo jiidaysa albaabkeedu furay oo diyaar baan u nahay dad xisbiyada mucaaradka nahay. arrintaa waxaanu kala soconnaa James Swan waxa ka wakiila iminka dhammaantood ninka inuu imanaya waa ka wakiila waxa laga shaqeynayay ee beesha caalamku ay nagu culaysanaysa inagana danteena ku jirtaan wax weyn doorashooyinkii la qabto oo la dedejiyo. annaguna waxaan mudnaanta koowaad siireynaa in doorashada la qabto. xukuumaddan waxaanu ka filaynaa xilligan waxaanu ka filaynaa isbeddelkii hore ka duwan marka la eego duruufaha aynu ku jiro mandaqada duruufaha ay ku jirto xilligan marka la eego waxaanu filaynaa inay iyaguna doorashada u dhagin uglaan doonaan ayaanu ka rajeynaynaa. sababtoo ay tahay madaxweyne kastoo dalka soo maray doorashooyinka qaybo ka mida buu qabtay ilaa hadda madaxweynahan joogaa wax doorasho ah oo dhacday ma jirto muddadii 2 sanadood ahayd uu joogay. marka maadaama inagu caalamku waxaynu la hortegaynay uu ahaa inuu dal dimuqraadi nahay calaamadda dimuqraadiyaduna waxa ka mid ah kow kama ahay waxa ka mid ah doorashooyin madax bannaan oo la qabtaa ka mid ah. marka waanu filaynaa inay taasi suurto geli doonto. ururada siyaasadda oo la furaa horta dalka oo dhan way culays ku tahay marka hore waayo marxaladan doorashooyin baynu geli lahayn oo cidda culayska koowaad ay ku leedahayna waa xukuumadda. madaxweynuhu hadduu doorasho qaban lahaa marka ururada la furo ee la qiimeeyo la kala saaro xisaabta la kala saaro xilligii dowladda u harsaabo wuxuu ku dhamaanaya inta ururada la furayo. annagu daan xisbiyada mucaaradka nahay warwar naga hayaa ma jiro in doorashada la furo ururada in la furo laakiin waxaanu aaminsanahay dowladdu waxay leeyihiin maandheedii muddo la doortay bay leeyihiin xisbiyadu. taan ku hadalay waxay ahayd markii xisbiyada 10 kasta la doortay markay dhamaadaan markaasay sharci tahay in la furo ururada siyaasiga. xilligaa markay gaadho haddii la furo cid anaga nooga jaaris badani ma jirto. xisbiga u cid 2 jeer buu urur soo maro u tartamay 2 jeer buu soo xisbi buu noqday wadani hal mar buu urur soo maray oo xisbi noqday uu soo noqday. marka hadda kuwa maanta meel bannaan wax ka yegleelaya annaga hadda ka jaarisnoon waxaanu institution dhisan oo gobolada iyo degmooyinkiina oo meel walba leh oo siyaasiyiintooda ku urursan tahay oo gobolada taageerayaal ku leh. marka halkaa wax wareey nagama hayaan waa sharciyad 10 sano in mar la furo haddii madaxweynuhu xeerka uu yidhaaha la furo soo jeediyo sida Axmed Siyaanayaba uu yeelay. laakiin qodobkan ka hadlaynaa wuxuu ahaa maadaama ay 8 sano aan marayno oo 2 sano harsan yihiin inaan sharciga loo burburinin khilaaf maalinta jooga kaargoosigii caro xeerarka looma furo looma burburiyo. wuxuu markay xilligeeda marxalkiisa gaadhaan baa la soo dadka reer miyiga dhaqankeena waxay yiraahdaan xeerka faramaran baa la daaweystaa bay yiraahdaan xeerka mar aan dil dhicin oo aan dhibaato dhicin oo reerka dhexdiisa waxba ka jirin ayaa xeerka la furaa la bedelaa. laakiin mushkilad taagan laguma dhex bedelo xeerka laguma dhex bedelo. kaantii aan ku hadlaynay taa ku eego dowladii hoose way muddo dhaafeen waa loo kordhiyay baarlamaanka waa loo kordhiyay madaxweynayaashii hore waa loo kordhiyay qolada qurayada muddadeedii gaadhin kala jaraya waa xisbiyada waxay iyaguna markay 10 ka dhaafaan in loo kordhiyaaba ila kordhin ku shaqeyn jirnay dhibisba maanta ka hor kuma inaa shaqeyn wadalkaas hadii la ujeedo gaar ahayd laakiin waxaan ku kalsoonahay
inaan arrintaasi ay meesha ka bixi doonto xukuumaddana aanay dani ugu jirin cidna marka marxalkeeda la gaarana waxaan ku kalsoonahay 10 sano markay dhammaadaan inay sharciyad noqoto waxaa ka u sheegayaa ragga xisbiyada ku dhawaaqay ee siyaasiyiinta ah dawaarg doonaya la heer madaxweyne inay gaadhaan iyagana waxaa looga baahnaa inay caddeeyaan xilliga ay tartanka gelayaan inuu yahay markii 10 sano dhammaato ee sharci noqoto yaani ku bilaabin taladooda ku bilaabin arrin sharci darro aanay ku bilaabin oo qaanuunka ka soo horjeeda waxay kaga duwan tahay sidii hadda ay weydiinayseen arrinteedii hadda waxay maraysaa ilaa security councilka inay gaadho oo dee wixii aynu ku faarinay dimuqraadiyadda ahayd iyo la yidhaahdo Soomaaliya way qabsan kari weyday marka mar walba anagu waxaanu rajaynaynaa cid kasta oo timaada kama warrami karo dhinaca kale ma odhan karo ilaa ay iyagu dee ka jawaabaan dhinacooda waxaan dadweynaha mar walba anagu niyad wanaag u muujinaynaa in ciddii timaada ergada aynu aqbalno iyagana saas umaanu ku filaynaa Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka Ilis News magaalada Hargeysa.